wasiirka xafiiska beeraha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdilaahi Maxamed iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka xafiiska maaliyadda ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamuud Yuusuf oo ay ku weelinayeen mas'uuliin kale oo gaadhay xarunta degmada Galxamur ee gobolka Doolo ayaa soo kormeeray adeeg bixinta xarumaha bulshada. mas'uuliintan uu hogaaminayay wasiirka xafiiska beeraha ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdilaahi Maxamed isla markaasina ay ku weelinayeen mas'uuliin kale oo ku guda jiray kormeerkoodu hawlood ay ku soo mariyeen degmooyinka gobolka Doolo oo gaadhay degmada Galxamur ee gobolka Doolo ayaa soo kormeeray isla markaasina soo indheeyay goobaha waxbarashada iyo cilmiyeedka duleedka magaalada laga hirgeliyay iyo xarunta caafimaadka ee santarka Dudun iyo goobaha waxbarashada. komishinka cabashooyinka ee dowladda deegaanka Soomaalida Marwe Ifraax Maxamed Xuseen oo warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida SRTV halkaasi ugu warantay ayaa ka warbixisay goobaha ay soo kormeereen mas'uuliintu. waxaan hogaamintii u soo kala baxday deegaamada gobolada deegaamada qaabka shaqada u socoto isdhexgalka bulshada tabashooyinka bulshada ay qabaan laftigeeda adeeg bixinta taageeraheeda. marka waxaan maanta kormeeray waxaan nimaanay degmada Galxamur waxaan soo booqanay xafiisyada adeeg bixinta hadii ay tahay waxbarashada hadii ay tahay biyaha hadii ay tahay dhammaan xafiisyada adeeg bixinta oo dhan waan soo kormeernay. ka bulsho ahaan bulshadan degmada Galxamur waxa weeye waa bulsho aad iyo aad isku tashi fiican samaysa hadii ay tahay inay ceelasho qotaan hadii ay tahay inay ka qayb qaataan shacabkooda qaabkii ciyaalkooda kor aqoonta ama waxbarashada kor ugu soo qaadi lahaayeen. dhammaan goobihii aan soo booqanay oo dhan waxaan ka aragnay wax badan oo ay qabteen bulshadan wax lagu dayan karayo wanaagsan ay qabteenna way jiraan hadii ay tahay macallimiinta ardayda waxbarta ama iskuulaadka jooga waxaan aragnay wax ma sha Allah ah oo ay kabis u sameynayaan waxbarashada macallimiinta si ay ardayda aqoontooda kor u qaadaan. dhanka kale xagga ceelasha magaaladan waxay leedahay 12 ceel 5 kamid ah meelahaas bulshada waxay ku qodatay isku tashi. marka hadii ay tahay even waxay ka qayb qaataan wadooyinka qaabkii ay u balaarsan lahaayeen ka qayb qaadashada bulshada. marka arintaas lafteeda arin aad iyo aad wanaagsan weeyaan ku dayasho mudan oo bogaadin mudan dhammaan deegaanada kale ama qaybaha kale ee gobolka inay dayashadaas wata sameeyaan. intaan kormeerka ku jirnay waxyaabihii aad ka noo taabtay aad ka noo soo jiitay waxa weeye bulshada say uga qayb qaadanayso horumarka haday noqoto say uga qayb qaadanayso waxyaabaha aad ka noo soo jiitay weeyaan. hadii iskuulaadka dhismahooda ay tahay hadii ay tahay taakuleynta macallimiinta ardayda u dhigaysa ay taakuleynayaan waa waxyaabaha aad ka noo soo jiitay oo aad ka wanaagsan oo in lagu sii xitaa wax laga qaato mudan weeyaan. farintayda ugu dambayso waxa weeye waxaan soo jeedin lahaa bulshada deegaanka inay sida bulshadan degmada Wardheer oo kaleeto gobolka Wardheer oo kaleeto ay noqdaan bulsho isku tashi dawlad kaliya wax ma qaban karayso. shacabka laftooda inay waxyaabaha ka dhiman iyaga laftooda isku tashi ku sameeyaan hadii ay tahay aqoonta kor loogu qaadayo waxbarashada caruurtooda inay waalidiinta ay ciyaalkooda si kor loogu qaado aqoontooda inay macallimiintii taakuleen u sameeyaan inay xitaa hoyga iyo cuntoodii waxa ka caawiyaan wadooyinka laftooda isku tashi inay ku sameeyaan. wax walba dawlad ma buuxin karayso inay dadka laftooda ay isku tashigaas ay sii wadaan baan soo jeedin lahaa.